Inagoo weli ku guda jirna casharradeennii la xiriira jibbaarada ayaa muuqaalkan waxaynu kaga shaqayn doonaa laba masalo. Waayo masalada koowaad waxayna leedahay 8x 8 to the power of x aan idhaahdo ayaa waxay noola mid tahay 2 to the power of 2x plus 1. Marka haddii ay sarreeyayaashu isku mid noqdaan, mase kale haddaynu nidhaa haddii jibbaaradu isku mid noqdaan, taa micnaheedu waxa weeyaan hooseeyayaashuna waa isku mid. Waayo haddaba 8 ayaynu isku daynaa maadaamay dhinaca bidixdu badan tahay. 8 ayaa waxaynu isku dayi doonaa inaynu qorno qaab jibbaara. Marka waxay noqonaysaa 2 times 2 times 2 kale times 2 may 3 keliya weeyaan 2 kale iska reebno times 2. Marka labadan haddaan isku dhufanno waa 4. 4na haddaynu 2 ku dhufanno waa 8. taa micnaheedu waxa weeyaan intana waxay noola mid tahay 2 to the power of 3. Okay, haddaba aynu u qorno qaabkaas 2 to the power of 3 oo lagu sii jibbaaray x ayaa waxay noola mid tahay 2 to the power of 2x plus 1. 3gan iyo x-tan ayaynu isku dhufan doonaa. dabeedna waxay noqonaysaa 2 to the power of 3x ayaa waxay noola mid tahay 2 to the power of 2x plus 1. maadaama imika hooseeyaashu isku mid yihiin, sarreeyaashu waa isku mid. Okay, waynu iskaga tegnaa haddaba hooseeyaasha. 3x ayaa waxay noola mid tahay 2x plus 1. wixii xaraf wata dhinac baynu isku marinaynaa. tusaale x aan idhahda 2x iyo 3x dhinac bay isku soo marayaan. markaynu dhinac isku soo marina labadaa waxay noqonaysaa 3x minus 2x oo inoola mid ah halkana halun bay noogu hadhay. marka hal labada waynu kala jaranaa. midda kale markaynu dhinaca u wareejinayno bidix 2x-ka minus buu isku bedelaya. haddaba plus baa xagga noogu yaalaa. markaynu marka dhinaca bidix u wareejino wuxuu noqonayaa minus. halkana marka waa x waxay noola mid tahay marka hal. qiimaha waxaynu ku bedeli doonaa halkay x-tu inoo taalo ama meel kasta x-tu inoo taalo isla egteennii caadigeed ama isla egteennii hore aynu furfurayno. marka dhinacana masaxno waayo waxay noola mid noqonaysa marka 2 to the power of aan idhahda 8 to the power of 1 maadaama halkii x aynu ku bedelayno hal ayaa waxay noola mid tahay 2 to the power of 2 times 1 plus 1. dabeedna waxay noola mid noqonaysaa 8 lagu jibbaaray hal oo noola mida 2. dabeedna 2 iyo haddaynu isku dhufano hal waa 2 plus 1. waayo 8 haddaad hal ku jibbaarto waa 8. waxay noola mid tahay 2 lagu jibbaaray 3. taa micnaheedu waxa weeyaan 2 haddaynu 3 ku jibbaarno inay noola mid tahay 8. waayo horeynu usoo tijaabinay oo 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 waxay noola mid tahay 8. marka qiimahani waa sax. waayo xabadda tusaalahaas xiga ayaa wuxuu qoran yahay 9 to the power of x minus 3 inay noola mid tahay 27 to the power of 3x. waayo haddaba qaabkee baynu sarreeyaasha isku mid uga dhignaa. haddaynu sarreeyaasha isku mid ka dhigno hooseyaasha waa iskaga tegi karnaa. marka 9kan waxaynu u qori karnaa 3 to the power of 2 iyadoo isla egteennii hore jibbaarkeennii horena aynaan
tegaynin ayaa waxay noola mid tahay 27 to the power of 3x. Waya 27-kana waxaynu qori karnaa 3 to the power of 3. waayo haddaad 3 jeer isku dhufato 3 waa 27. labada haddaad isku dhufato waa 9. 9na haddaad 3 ku dhufato waa 27. waayo marka xaggani waxay noqonaysaa 3 to the power of 2. 2 iyo waxaan isku dhufanaa x 2x. 2 iyo waxaynu isku dhufanaa minus 3 minus 6 ayaa waxay noola mid tahay 3 to the power of 3 times 3x. way hooseyaasha waa iskaga tegaynaa maadaama isku mid noqdeen. marka waxay noqonaysaa 2x minus 6 ayaa waxay noola mid tahay labadan waynu isku dhufanaa waa 3 iyo 3x marka waa 9x. wixii xaraf wato dhinac baa isku marinaa haddaba minus 6 ayaa xaggaa ku hadhaya. tan xaggaasaan soo wareejinaynaa 9kan horta waan qoraynaa 9x. tanna markaynu soo wareejino minus 2x bay noqonaysaa. x dabeedna minus 6 halkiisaan ku daynaynaa. labadana waynu kala jaraynaa waa 7x. dhinac kasta waxa x-ka la socda ama waxa xarafka la socda ayaanu u qaybinaynaa 7 xaggana 7. dabeedna labadan way isla baxayaan. x marka waxay noola mid noqonaysaa minus 6/7 waa qiimaha ay noola mid tahay. haddii haddaba aad ku tijaabiso ama aad isku daydo inaad hubiso inay sax tahay in kale qaabkan ayaad samaynaysaa ama sidan ayaynu u dhigaynaa. halka egistu inoo taalo sidaynu markii horeba samaynay ayaynu ku bedelanaa qiimahan inoo soo baxay. waxay noqonaysaa dabeedna 9 to the power of minus 6/7. minus 3 intan marka qows baynu ku xidhanaa ayaa waxay noola mid tahay 2 to the power of 3. dabeedna 3ga waxaan ku bedelaynaa aan idhaahdee egasta waxaan ku bedelaynaa qiimihii aynu la soo baxnay. waxay 6 loo qaybiyey 7. waaye haddaba intan aynu ku horeyno maadaama intan badan tahay inta bidixda xigta waa intan. dabeedna intaas ayaan soo qaadanaynaa. waxaynu odhanaa minus 6/7 laga jaray 3. halkan waxaan u qaybinaynaa 1. dabeedna waxaan soo qaadanaynaa least common multiple-ka tan iyo tan aan isku qaybinaynaa waa 7 loo qaybiyo 7 1 weeyaan. 1 ayaan 6 ku dhufanaynaa minus 6. mar kale 7 waxaan isku qaybinaynaa 1 waa 7. 7 aan ku dhufanaynaa minus 3 waa minus 21. dabeedna intan waxay noola mid tahay 27/7. marka waxaynu odhanaa 9 lagu jibaaray 27 minus baa raacsan laakiin minus 27 minus 27/3/7 ayaa waxay noola mid tahay. laakiin waan ka xumahay halkani 2 ma ahayn bartani maaha 2 waa 27 bay noo ahayd. marka 27 lagu jibaaray 3 iyo waxaan isku dhufanaynaa 6 minus 18 loo qaybiyey 7. waaye halkan marka haddaynu qaab jibaar u dhigno waa 3 lagu jibaaray 2 oo lagu dhuftay jibaarkii hore inoo sii yaalay 27/7 ayaa waxay noola mid tahay. halkanna waxay noqonaysaa 3 lagu jibaaray 3 jibaarkii horena lagu sii dhuftay minus 18 loo qaybiyey 7. waaye haddaad 7 ku dhufato haddaad 27 ku dhufato waxay noqonaysaa 3 lagu jibaaray minus 54 loo qaybiyey 7 ayaa waxay noola mid tahay 3
saddex haddaad ku dhufato 18 waa minus 54 loo qaybiyey 7 dabeedna hooseeyaasha iskaga tegi kartaa 54 loo qaybiyey 7 waxay noola mid tahay minus 54 loo qaybiyey 7 markaa qiimahani waa sax